haddaba maxaa soo dhacay warar ah intaynu kala maqnayn barnaamijka ayaanu ku haynaa qodobada ugu waaweyn. haddaba ugu horreyn waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa Trump iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameynayay 4 askari oo la sheegay in lagu soo dilay dagaalka Iran. 3 waxaa lagu qararamsaday Urdun, midna Ciraaq. halkaas ayuu tagay, waxa uu ka qayb galay munaasabadii aaska. hadaluu jeediyo hanjabaad uu u jeedinayo Iran. hanjabaadaha marka waxaa ugu waaweyn wuxuu yidhi Hormuz markabkii soo mara gantaal hadday ku rido hal gantaal oo ay weerarto Iran waxay ka jeeban tahay buundooyinkeeda iyo goobaheeda muhiimka ah ee Tahraan iyo magaalooyin kale iyadana la burburina. haddana markab kale hadday wax ku rido buundo iyo meel tareenadu maraan waddanka dhan baabi'inayo. wax isxaana aan u sameynaa Iran dambe ma jirto. askarta hadday naga dishana askartii ay naga disho waxaan ku bedelaynaa inaynu burburino Iran. wuxuu rabo iska sheego. haddaba markaan idin tuso warbixinta laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump ayaa wuxuu tagay meel la geeyay askartii Mareykanka ee lagu soo dilay dagaalkii Iran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii ka qayb galay xaflad aasa oo loo sameynayay askartii Mareykanka ahayd ee lagu dilay weeraradii Iran ay ku qaaday bariga dhexe. 4 askari ayaa la keenay goobtaas iyagoo markaasi ku jira sanduuqyo lagu soo daboolay calanka Mareykanka. haddaba dagaalku waxaa la sheegay in uu qaatay lacag aad u fara badan oo Mareykanka kaga baxay. haddaba dhibaatada Mareykanka dagaalka ka soo gaartay dhinaca dhaqaalaha waxaa lagu sheegay ilaa hadda 37.5 bilyan oo dollarka Mareykanka in markaasi ay Mareykanka ku kacday. dhanka kale waxaa kaga dhintay dagaalkan intuu socday 18 askarta Mareykanka ah. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah Mareykanku ay sheegeen askarta dhaawacantay inay hadda gaarayso 450 askari oo Mareykan ah. madaxweynaha wuxuu u safray saldhigga ciidamada cirka ee la yiraahdo Dover ee markaasi la geeyo askarta halkaasi ku ahsad dagaalada ku soo dhimata. madaxweynuhu waxaa halkaasi kala qayb galay mas-uuliyiin kale. haddaba Mareykanka waxaa la sheegay askarta 3 ka mid ah in lagu dilay Urdun, halka mid kalena lagu dilay Kurdistaanta Ciraaq. waaye marka ninkan Mareykanka drama wuxuu leeyahay waa argudaya Iran hadday hal markab madfac ku rido kan Iran marka waxay leedahay haday ku taala waxa ay sameeyo askartan waxyaabaha la yaab kale riboorka ku jira waxa ku jira 450 askariya dhaawacay dagaalka Iran iyo Mareykan markii uu bilaabmay. 450 18 way dhimatay. 37.5 bilyan oo dollar oo Mareykan ah ilaa hadda qarashka Mareykanka kaga baxay maraysa. marka waa hebel waa la nabar dhabay maqli jirta odaga si fiican loo soo nabar dhabay. marka halkaasuu maraya. warkaas marka halkaas ay kaga gudbaynaa. wararka kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah Iran waxay sheegtay inaanay waxba iska bedelin warshadihii soo saarayay gantaalaha iyo droniska waa sidoodii. hal maalin shaqo la'aan ma dhicin. dagaal ha socdo ama yuu soconin dhulka hoostiisa laga adeegtaa. shaqadu waa socotaa, gantaalihii way soo baxayaan, kuwii jugta cuslaa kuwii kale kulli waa la soo saarayaa. marka wax annaga dhibaato uu weeraradan waxaan uu noo geystay ma jiraan. mana aaminsanin inuu Mareykan wax dhibaato u geysan karo hanaankeena difaaciyada gantaalada waxaan maba soo gaari kareen. niman ismaadii waa Iiraaniyiin. haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray afayeenka ciidanka Iran oo shir jaraa'id qabtay galabta ayaa sheegay soo saarista sawaariikhda iyo droniska inaanay joogsanin intii uu dagaalku socday.
afhayeenka ciidamada iiraan wuxuu yidhi in la soo saaro gantaalaha iyo droniska marnaba ma joogsanin intii dagaalka uu socday ayuu leeyahay. cadowgana umaysan suuro gelin in uu qabsado marinbiyoodka Hormuz oo uu xoog ku maamulo marnaba ma dhacinu mana dhacayso. haddaba waxa uu sheegay istaraatiijiyadda iiraan inay markaa tahay in Maraykanka uu ka guuro gobolka si loo xaqiijiyo hadafka mana awoodi doonto Israa'iil inay sii wado iyaduna joogitaankeeda. marka nimankan iiraaniyiinta niman naxaya ma ninkan weerar soo qaaday annaga hadafkeena waxa waaye leeyahay isaga Israa'iil iyo dhulkan inaanba lagu arkin adaaba wax kaleba ka fakaraya. marka adikay ku taala waaye hawshaas marka iyaduna halkaas maraysaa. warbixinada kale ee soo kordhay caawa barnaamijkan ku soo gudbinay waxa kamid shalay waxaan ka hadlaynaa wadan la yiraahdo Bulgaria oo Iiraan ay u digtay war joogay tiri joog waxaad ka joogtaa inaad Maraykanka saldhigyadaada inta si diyaarada keensadona la ku soo weeraro. hadday taas u dhacdo joogtaan idinka gelinaynaa. nimankii baarlamaankooda fariisiyeen baarlamaankii aqlabiyadooda ku ogolaaday Maraykan hana wuxuu rabaa sameeyay. markaas nimankii meesha ka agdhawaa gudoomiyaashii gobolada saldhiga ka agdhawaa cabaadkoodii baxay war Iiraan nama deynayso waa cabaadkii baxay. haddaba marka aad tuso warbixinta arika laga qoray saacadihii la soo dhaafay Bulgaria waxay waafaqday inay martigeliso diyaaradaha Maraykanka iyadoo digniina ay way imaanayaan Iiraan. baarlamaanka Bulgaria ayaa maanta Arbaca u fariistay arintaasi waxaana uu ka hadlayay saldhiga Maraykanku ay doonayaan militariga iyadoo digniinaha Iiraan ay soo tarayeen. haddaba wasiirka gaashaandhigga ninka la yiraahdo Dmitry Sotoyanov ayaa baarlamaanka ka hor sheegay arintan Maraykanka uu soo weydiistay Bulgaria. baarlamaanka ayaa la sheegay markii dambe inay cod u qaadeen 136 xildhibaan ayaa ogolaatay 13 ayaa mucaaraday sida la sheegay oo markaa diiday oo tiri anagu ma ogolin waxaana ka aamusay 2. haddaba marka waxaa la sheegayaa in loo ogolaaday Maraykanka 8 ka mid ah diyaaradihiisa casriga ee yiraahdo KC-135 inay soo degaan wadankaas oo ay joogaan. haddaba wadankan waxaa la sheegay inuu xubin ka yahay midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO. marka baarlamaanku codkaas ayuu u qaaday ayaa la leeyahay arrinkaasuna sidaas ayuu ku dhamaaday. marka Iiraan marka ayada u taala wixii marka ay ku sameyn karto ayada laga war. qodobka kale ugu dambeeya barnaamijkeenu ku soo qaadanaynaa caawa wuxuu yahay shirkadaha diyaaradaha ayaa loo digay Yurubiyanka. midowga Yurub waxay yiraahdeen shirkadaha diyaaradaha Yurub ay leeyihiin ma u dhawaa kartiin hawada Urdun. wadanka Urdun hawadiisa hadaa u dhawaataan adinka ka mas'uul. gantaalaha Iiraan way meesha way wiifayaan droniska Iiraan way wiifayaan gantaalihii waxbaan difaacayna laha Maraykanka iyo Urdun iyaguna hawadaasay nugta ku hayaan. diyaaradii rakaab wada ee meesha ka dhawaata ayada ka mas'uulaalin hawada Urdun ma u dhawaa kartiin. haddaba marka aad tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas midowga Yurub ayaa waxa uu digniin u diray oo u nasteexeeyay shirkadaha diyaaradaha isagoo sheegay inay tahay inay ka fogaadaan hawada Urdun. haddaba hay-adda badqabka diyaaradaha duulimaadyada ee taageersan midowga Yurub ayaa shirkadaha midowga Yurub maanta Arbaca ugu baaqday inay ka fogaadaan hawada iyadoo la sheegay halka inay ka socdaan dagaalka u dhaxeeya Maraykanka iyo Iiraan iyadoo gantaalaha droniska iyo kuwa difaaca hawada ay halkaasi ka socdaan. marka iyaduna warkaasi wuxuu ka mid yahay wararkii ugu waaweynaa ee saaran. haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa akhbaarta wixii warar soo dhacay. waan filayaa inaad si weyn uga heli doontaan wararkeennii aanu ku soo gudbinay barnaamijkii koobaad iyo kii labaad ee maanta oo iyaguna aad u xiiso badnaa. dadka aan daawan iyaguna way soo daawan doonaan. inta aan mar kale kulmayno asxaabay iyo barnaamijyo kale la garaya oo shaar garaya barnaamijka nabadgelyo.